Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luqadda Jarmalka ee ardayda beginnerska ah ama ku cusub barashada luqadda Jarmalka. Lektion 35 casharkeena 35aad waxaynu ku baran doonaa casharkeenan negative article im nominative artikalada diidmada ah ee xaaladda nominative-ka amba nominative case-ka. Artikalada diidmada ah waxaa laga wadaa sida maya. Inta aynaan casharkan bilaabin waa in si fiican u taqaanaa bestimmte article oo ah der, die, das oonu ku soo baranay casharkeenii 18aad iyo unbestimmte article oynu ku soo baranay casharkeenii ugu dambeeyay. Haddaba aynu ku bilowno jumladahan si aad u fahantaan wuxuu yahay negative article amba artikalada diidmada ah. Ist das ein Stuhl? Kaasi amba kani kursi miya? Nein, das ist kein Stuhl. Das ist ein Computer. Maya kani maaha kursi, kani waa computer. Haddaba waxaa lagu weydiiyey su-aasha ah ist das ein Stuhl? Kaasi kursi miya? Adiguna waxaad rabtaa maya inaad tidhaahdid maya kaasi maaha kursi. Waa inaad tidhaahdaa nein, das ist kein Stuhl. Haddaba waxay ku xidhan tahay in aad kein iyo keine odhan kartid artikalka uu wato kursigu. Kursigu artikalku qaataa waa der Stuhl. Sidaa darteed wuxuu noqonayaa kein. Haddaba sida aynu ku soo barannay bestimmte article artikalka uu qaato kursigu waa der. Bestimmte article-na wuxuu noqonayaa ein Stuhl. Haddaba wuxuu marka aynu ka hadlayno isagana negative article-ka wuxuu noqonayaa kein. Haddaba markaad rabtid in aad tidhaahdid das ist ein Computer, sababta u qaatay waxay tahay artikalka uu qaato computer waa der. Bestimmte artikalku qaataana waa ein. Wax walba oo der qaataa waxay noqdaan ein. Wax walba oo die qaataana waxay noqdaan eine. Haddaba aynu eegno feminine article-kana artikalka dhadiga. Ist das eine Blume? Kani ubax miya? Nein, das ist keine Blume. Das ist eine Schokolade. Maya kani maaha ubax, kani waa shukulaato. Maadaama ay Blume ay tahay feminine amba shay dhadig ah, bestimmte article-kana wuxuu noqonayaa eine. Negative article-kuna amba artikalka diidmada ahna wuxuu noqonayaa keine. Markaad rabtid in aad tidhaahdid das ist eine Schokoladena waa inaad marka hore eegtaa artikalka uu wato shukulade. Markaas ayaad go'aansan kartaa inuu eine amba ein noqon karo. Haddii ay weli wax yar kugu adag tahay waxaan ka wado bestimmte article, dib ugu noqo casharkeenii ugu dambeeyay ee aan soo geliyo halkan ama channelka. Haddaba aynu eegna iyadana xaaladda Neutrumka amba wixii artikalka das qaata. Ist das ein Buch? Kani Buch miya? Nein, das ist kein Buch. Das ist ein Handy. Maya kaasi maaha Buch, kani waa telefon ama telefonka gacanta. Imika waad fahmaysaa ayaan u malaynayaa sababta ayna u ahayn halkaasi Buch, ayna halkan hoosena u ahayn keine Buch. Sababta ay ein u tahay waxay tahay artikalka Buch uu qaataa waa das. Saa darteed wuxuu noqonayaa bestimmte artikalku ein Buch. Saa darteed negative article-ka ama artikalka diidmadiina wuxuu noqonayaa kein maaha keine. Wuxuu noqonayaa kein Buch. Marka aad rabtid in aad dhahdid
kaasi waa teleefon ama teleefonka gacantana das ist ein Handy. maadaama uu handy qaato artikalka das. haddaba aynu eegno wixii jamac ah amba plural ah ee badan. qaabka aad u weydiinaysa amba lagu weydiinayaa way ka duwan tahay sidii hore. sind das Sterne, kuwani xidigo miyaa? Nein, das sind keine Sterne, das sind Flaggen. maya kuwani maaha xidigo, kuwani waa calamaan. haddaba markaynu ka hadlayno plural ama jamac, male wax la idhaahdo unbestimmte article sida tusaalaha sare idinka socota lama socoto eine iyo ein, laakiin waxa aynu leenahay amba la socda oo aynu weli aan ka hadhin negative article oo ah keine, sida halka hoose idinka muuqata. aynu eegno tusaalayaashan kale si aad usii fahantaan. Abdi hat Geld, Abdi wuxuu haystaa lacag. Negative ama artikalka diidmadiina wuxuu noqonayaa Abdi hat kein Geld, Abdi ma haysto wax lacag ah. tusaalaha labaad ist ein Banane, ka diidmadiina wuxuu noqonayaa ist keine Banane, isagu ma cunayo wax moos ah amba moos. tusaalaha saddexaad kauft Brot, wuxuu soo iibsanayaa rooti. tusaalaha ka diidmadiina wuxuu noqonayaa negative articleku kauft kein Brot, ma soo iibsanayo wax rooti ah. haddaba aynu halkan iskugu soo koobno. masculine wixii lab ah wuxuu noqonayaa artikalka labka ah ee singularka ah kein, halka artikalka dhadiga ahna uu noqonayo ee singularka ah keine, halka artikalka neutralka ahna uu noqonayo kein. jamaca pluralka ah artikalkeeduna wuxuu noqonayaa dhammaan jinsiyada ama masculine amba feminine keine. haddaba masculinta ama masculine unbestimmte artikalku waa ein, negative articalkuna wuxuu noqonayaa kein. femininkana unbestimmte article wuxuu waxa weeyaan waa eine, negative articalkuna keine ayuu noqonayaa. neutralkana ein ayuu noqonayaa unbestimmte article, negative articalkuna keine. pluralku ma leh wax unbestimmte article la idhaahdo, laakiin negative articleku wuxuu noqonayaa wax walba. danke, mahadsanid. waad ku mahadsan tahay intaad i daawatay ee aad i dhegaysatay. waa rajaynayaa inaad dhammaantiin wax badan casharka ka wada fahanteen. haddii aad casharka ka heshay, fadlan sheergare oo la wadaaga asxaabtaada jecel in ay iyaguna bartaan luuqadda Jarmalka. haddii aad nagu cusub tahay, fadlan subscribe garee si aad ula socotid casharo kale oo fara badan. haddii aad rabtid inaad meelo badan igala socotid, ood ku soo biiri kartaa Instagramka aan ku leenahay page-kayga iyo Facebook-kaygaba.